qaalisan waa $10 shayga noogu jabanna waa $1 marka waxa weeyaan $10 iyo inta u dhaxaysa ku adeegta baan leenahay macaamiishayada waxa weeye hadiyo jeer waxaan ugu ballan qaadaynaa dhar tayo leh oo qiimo jaban ah inaan u keeno Homebay markii hore waxay xarunteedu ahayd ka soo horjeedka shirkadda Bariga Galbeed ee magaalada Boorama hadda waxay u soo guurtay oo xarunta ay ka furtay suuqa doqonka magaalada Boorama maamulka xarunta ayaa ku soo dhaweynaya macaamiishiisa iyo kuwa cusubba gacmo furan isla markaana waxa uu sheegay inay keeneen safarro cusub oo tayo leh laguna adeeganayo $1 ilaa $10 waa kan isagoo faahfaahin kooban ka bixinaya isla markaana bulshada ku wargelinaya inay hore u soo gaaraan bahweynta nagu xidhan ee macaamiishayada oo ah dad aad iyo aad ugu hanweynahay oo ah maaragtay macaamiisha gobolka Awdal dhammaan oo ah magaalada Boorama nawaaxiga magaalada Boorama iyo nawaaxigeedaba waxaan leenahay soo dhawaada walaalayaal waxaan ka soo guuray halkii aad nagu ogeydeen hore muxuu ahaa Bariga Galbeedka waxaan u soo guuray suuqii doqonka oo downtown-ka ah waxaan leenahay macaamiishii intii hore nagu xidhnaydna welcome noo kaalaya intan dambe ee imika nagu xidhan waxaan leenahay soo dhawaada dhammaantiin waxaan leenahay gacmo furan annaga oo Homebay oo ah saaxiibka dadweynaha waxaan leenahay macaamiishayada mar kasta safar cusub iyo maaragtay ku soo dhawaada iyo qiimo jaban waxaan hadda ku soo biirinay hal ilaa muxuu ahaa $10 ku adeego service-keegu waxa weeye $1 ilaa $10 inuu qofku ku adeegto shayga noogu qaalisan waa $10 shayga noogu jabanna waa $1 marka waxa weeyaan $10 iyo inta u dhaxaysa ku adeegta baan leenahay macaamiishayada waxa weeye hadiyo jeer waxaan ugu ballan qaadaynaa dhar tayo leh oo qiimo jaban ah inaan u keeno waxa weeye hadda waxaan keenay safar cusub oo ay ka mid yihiin garamada t-shirtka iyo muxuu ahaa shaarasha iga dambeeya ee xagga dambe suran iyo isku joogyo sportiga saraawiishi single-ka sportiga suurashi dhammaan dharkii dumarka oo maaragtay tayo leh kuwii bijaamaadka ay ku seexanayeen dharkii dhalinyarada oo maaragtay saraawiil muxuu ahaa aad iyo aad tayo leh oo idin cajabin doona markaad soo booqataan meesha waxa kale oo meesha yaala dharkii ciyaalka oo iyagna ka maqnayn meesha oo aan awoodda saarayno inaan dharka ciyaalka aan maaragtay aad iyo aad u kordhino waxa kale aan meesha insha Allah waxaan maaragtay dadka mar kasta macaamiishayada aan ugu ballan qaadaynaa inaanu keeno dharka ugu tayada badan leh sidaa iyo waxaan leeyahay asxaabtayda iyo muxuu inta ku xidhan suxufi cishqi oo saaxiibkeeya waxaan leenahay waa inaad soo booqataan mar kasta iyo meel kasta oo joognaba salaamu calaykum waraxmatullaah warbaahinta Cishqi TV Boorama